warbaahinta caalamiga ee Al Jazeera ayaa 23 May 2019 waxay boggooda hore ku daabacday warbixin sheegaysa in wadaad Soomaali ah uu gaarsiiyay diinta Islaamka dalka Maldives ee maanta loo dalxiis tago isla markaana dhaca koonfurta qaaradda Aasiya. Warbixinta ayaa qeexaysa in wadaad la oran jiray Abu Barakaat al-Berberi oo ka soo jeeday magaalada Berbera inuu qarnigii 12aad tagay dhulka haatan la yiraahdo Jamhuuriyadda Maldives isla markaana uu gaarsiiyay diinta Islaamka. Sidoo kale Al Jazeera waxay xustay in Suldaanka Soomaaliya lagu magacaabi jiray Cabdulcasiis al-Muqdishaawi oo ka socday boqortooyada Ajuuraan ee xaruntii ugu weyn ee Muqdisho inuu qarniga 14aad ka talinayay dalka Jasiiradaha badan ee Maldives. Dastuurka dalka Maldives waxaa ku qoran diinta Islaamka waa ku waajiban qof kasta oo muwaadin ah lagamana ogola diinta Islaamka diin aan ahayn. Dalkan wuxuu ka kooban yahay boqolaal jasiiradood waxaana bartamaha magaalada caasimad u ah dalkan ku yaala qabriga wadaadkii reer Berbera ee gaarsiiyay diinta Islaamka. 1979 Soomaaliya waxay taageertay dalka Masar ayadoo ka mid noqotay 3 dal oo diiday inay xiriirka u jaraan dalka Masar waxayna sii jirtay taageero dhaqaale. Sidoo kale Soomaaliya waxay ka qayb qaadatay sidii mar kale Qaahiro lagu soo celin lahaa xarunta Jaamacadda Carabta. Urur goboleedka IGAD oo ay ku midaysan yihiin 8 dal ee dhaca Bariga Afrika waxaa lagu aasaasay magaalada Djibouti. In la aasaas ururkan waxaa ka dambeeyay 1986 madaxweynihii hore ee Djibouti Xasan Guulid Abtidoon. Soomaaliya waxay taageertay dal Afrikaan ah sida dhaqdhaqaaqii looga soo horjeeday midowga South Africa. Nelson Mandela ayaa u mahad celiyay 4 wadan ee ka mid ah Soomaaliya maruu ka qudbeynayay shirkii Pan Africa ee lagu qabtay Addis Ababa. Waxaa taariikhda ku suntan ciyaartoy Soomaaliyeed oo ka soo goostay xulka qaranka Itoobiya kuna soo biiray xulka qaranka Soomaaliya kadib markii arkeen dalkooda oo xor ah caalam u gaarana oo ka babanayo. Kadib dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray 1964 waxaa 1965 lagu soo dhaweeyay Soomaaliya Maxamed Jibriil Jooro, Ismaaciil Girile iyo Faxad Ibraahim Waaberi ayagoo go'aansaday inay kor u qaadaan calanka Soomaaliya halka ay sidii lahaayeen calan uu leeyahay dal duulaan ku ah dad iyo dal ay leeyihiin. Tartankii gobolada xilligii burburkii ka hor waxaa loo tartami jiray 18 gobol oo dalka oo dhan ah waxayna goboladu isku reebi jireen si ay daris u yihiin. Gobolka Jubbada Hoose ayaan ah gobolka ugu badan waxa uu qaaday 8 jeer, Shabeellaha Dhexe 3 jeer, Shabeellaha Hoose 3 jeer, Waqooyi Galbeed iyo Banaadirna waxay qaadeen mid 1 jeer. Caalulo waa degmo ka tirsan gobolka Bari waliba u dhow Raas Caseer. Xilliga gumeysiga Caalulo waxay ahayd mid leh saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Waa degmada kaliya ee dhacda badda iyo barigaba waxayna saaxiibtay ilo dhaqaale oo kala duwan waxayna soo saartaa lubaanta ugu badan ee dalka laga dhoofiyo.